komishanka heer qaran ee xakamaynta AIDS-ka ayaa maanta deeq raashin u qaybiyay qaybo kamid ah dadka la nool xanuunka AIDS-ka deeqdaas oo komishanku ka bixiyay budget uu madaxweynaha Soomaaliland ugu daray miisaaniyadda qaranka dadka la nool xanuunka AIDS-ka waxaana deeqdaasi faahfaahin dheeraad ah ugu horeyntii ka warbixiyay agaasimaha daryeelka iyo daaweynta ee komishanka xakamaynta AIDS-ka Sahra Maxamed Xuseen Sahra Basbaaso komishanka xakamaynta AIDS-ka xafiisyadeedii waxaanu maanta ay bishu tahay 18 bishii 10aad ee Oktoobar waxaanu halkan ku qayminaynaa waxoogaa raashin oo caawimo aan ugu talagalay dadka xanuunka la nool raashinkaas oo ah 200 oo qoys raashinkan aanu maanta halkan ku qaybinayno insha Allah markaan intan dhameeyno goboladana waxaan isleenahay aad ku soo qaybisaan ma aha raashin hay'ad naga caawisay ama raashin dad samafalayaal naga caawiyeen waa raashin madaxweynaha qaranku waxoogaa kharash oo miisaaniyadda ugu daray dadkan aan u siinay oo siday u gaadhisay aan ugu qaybinay aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa madaxweynaha qaranka oo mar walba il gaar ah ku haya dadka xanuunka la nool ahna gudoomiyaha komishanka ee heer qaran marka maanta dadkaas baan u qaybinaynaa waad arkaysaan waa dadkii walaalaheen ahaa fariin baan doonayaa maanta inaan bulshada reer Soomaaliland u diro dadkan waa dadkeennii xanuunkana ilaahay baa keena marka waxaan u dirayaa fariin dadka baayic mushtarka ah ee maalqabeennada ee sekada ama fidriga bixiya inay dadkoodan jilicsan ay caawiyaan oo caruur iyo dad waaweyn u badan dad aan masaakiin oo waxba haysan awoodoodu aanay waxba baaleyn kareen marka waxa weeye qofkaaga baahan ee jilicsan markaad u naxariisataa adigana ilaahay ku naxariisanaya baaqiyo badan oo sidaasna waanu dirnay insha Allah bidmillaahi kariim marka waxaanu leenahay dadka aynu naxariisano waa ehelkeenni waa walaalaheenni waa qaraabadeennii waa familygeenni marka wixii aynu tari karayno waxaan leeyahay dadka baayic mushtarka ku soo caawiya iyo dadka waxaysta ilaahay wax siiyaba culimadana waxaan leeyahay dadka caafimaadka qababa waa u hadashaane dadkiina walaalaha ee buka ee baahan u hadla oo caawimada iyo sekada iyo intaba ugu soo deeqa aad iyo aad baad u mahadsan dhinaca kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay xubno kamid ah dadkaasi ee maanta loo qaybiyay deeqda raashinka ah waxaan ka salaamayaa dawladda oo dhan madaxweynaha xildhibaanka jibi golaha dhexe golaha sare waxaan u mahadnaqayaa dawladdeena waxayna siisay teega intaana gacanta nagu hayay marka mahadnaq gaara iyo maxaa gaaraan u naqayaa Axmed Nuur Ciise telefishinka bulsho Hargeysa